كنت wanaagsan daawadayaal waa qaybtii labaad waa jimcaha hagaagsan daawayashana qiimaha leh qaybta jimcahan maanta waxaynu dooranay arrimaha caalamka islaam maadaama horfadhi meedinta badan ay dawladda aad uga soo waranto haddana marar badan inaynu wacaasha iyo warwareynta aynu leenahay caalamka islaam aynu eegno qaybtii hore dalka Sacuudiga iyo halka uu maartay maanta taagan yahay ayaynu fiirinay haatan waxaan eegnaa bal Imaaraadka Carabta iyo Qatar iyo fargelimahan iyaguna ay wadaan salahan dalalkan horta waxaan idin sheegayaa labada dal ee dalalka la yiraahdo Qatar iyo dalka la yiraahdo Imaaraadka Carabta horta labadu waa fargelimo dunida ay sameeyaan fargelmahooda ayaa maartay si kala duwan loo kala tarjumi karaa waxaana loo karaa dalka Qatar asagu fargelimaha uu sameeyaa inta badan waxay ku aadan yihiin inuu leverage raadinayo dalku raadinayo saameyn siyaasadeed oo maartay inuu explodiyo oo maartay uu sameeyo laakiin waxa marka si cadaalad loo fiiriyo dalka Qatar arrimaha fargelimaha uu sameeyo kulligoodna cadeyn bin wada keeni doonaa waxaad moodaa in ay ka ilka qabow yihiin ama qaabka u sameeyaan ay ka yar duwan tahay Imaaraadka Carabta oo ugu yaraan at least ay og yihiin waxa ka soo galaya yaani dalka fargelinta ku sameeyaan waxay kale yihiin kulli ujeedo horta ma jirto wax marka hore ay safiisa bililaahiya oo dalla uu sameeyo dal kasta ujeedo ayuu kale ujeedooyinkii marka baa kala duwanaa kara sida loo marayo ujeedada qofku sida ujeedadiisu ku gaarayo asaga doortay inta badan hadaa deerto adigu damacday inaad guul gaadho oo guusha aad u aragto inaad wada xun ku gaadho inaad dad dhibaataysan inaad dad dulmido inaad dad dhacdo inaad dad xoolahooda qaadato inaad dad ka baayac mushtirto inaad dad ceebayso inaad dad masiibo u geysato aday ku taala ma ogtiino iyo inaad maaragtay aad sameeyso inaad wada wanaagsan marto adigu is dhisto aqoontaada dhisto wada xalaal oo nadiif oo samcad leh aad raadsato hadda ugu dhinacan laba hadaad xitaa dantaad lahayd dad gaari weydo oo ama dan dhaqaale aad lahayd ama siyaasadeed aad lahayd dad gaari weydo ugu yaraan naftaada baa dhismaysa way wada wanaagsan baad martay marka Imaaraadka sanad Qatar oo kale iyo Imaaraadka waxay kula duwan yihiin balka ka fiireen had sanahan Afghanistan inoo soo qabo waxaan rabnaa inay wararku cadeyn yeeshaan oo noqdaan warar macnaha iyo maartay noqdaan yaani baxsigan uu noqdo ama taxliilkan uu noqdo mid qofku wax ka faa'iido markuu daawado samarkaana qofku uu jeclaysto mar walba inuu daawado waayo wixii hadaadan ku saleynin xogaad baadhay iyo waxaad soo raadisay iyo waxaad waqti gelisay qofkii waxba ka faa'iidi maayo adigana waqti kaaga dhumaya marka hadda salahan dalka leeyahay Afghanistan waxay cilaaqaad la sameeyeen qadariyiintu Taliban muddo aad u fog bay ila lahaayeen cilaaqaad bay la lahaayeen nimankan cilaaqaadka ay la lahaayeen waxa uu ahaa mid aan qarsoodi ahayn marka inta wuxuu ku soo bilowday cilaaqaadkooda wuxuu ku soo bilowday inay xiriir la sameeyeen Mareykanka iyo Taliban waxay ku lahaayeen meeshan xabadan joojiya arintan xabad ku gaari miisaan wadankan sida ku badbaadi kara miisaan Mareykanka waxay ku lahaayeen nimankan kama adkaa kartaan ugu dambeyntan wada hadlaysan waayo haddaad ka adkaa kartaan 20 sanadood bay isleeyeen waxa la aaminsan yahay in ilaa 15 sanadood oo cilaaqaadkaas soo socday dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in dawladda Qatar ay cilaaqaad la lahayd Taliban markii ay fadhiday dalka taladiisa haysay Afghanistan haddaba waxay soo dhirin risabo Qatar waxay Mareykan ku qancisay in xafiis siyaasadeed oo Taliban leedahay yaani laga furo magaalada la yiraahdo laga furo Qatar magaalada la Doha xarunta Qatar laga furo 2013 bishii June intaas muddadaas koob iyo 10 sanadood ka horeysay inta waxay soo ducducayaan inta halka la soo gaarsiiyo fiiri marka dan la'aan ma jirto oo dalka Afghanistan inay dan ku yeeshaan oo dan ku yeeshaan mid ganacsi ku yeeshaan mid saameyn ku yeeshaan mid diblomaasiyad ku yeeshaan mustaqbalka oo dadka ay taageerayaan ay hadhow xisbiyan noqdaan waa wax dalku u sii dhitaysto waayo dal kasta ma noolaa karo ilaa uu helo cid ku tiirsanaado waana sida adduunka oo dhan sameeyaan dalalka qaarkoodna waxyaalaha way ku soo tabceen oo taxalufyadan hadda aynu ka hadlanay ee Mareykanka iyo Sacuudiga wada leeyihiin waa lagu soo tabcay 70 sanadood laga shaqeynay moogta 70 sanadood laga shaqeynay dalalka qaarkood dagaal bay isku barteen oo marka hore dagaal bay iska hortageen sida hadda cilaaqaadka ka dhaxeeya dalalka Japan iyo Mareykanka aan isku meelsin way isdileen way kala adkaadeen haddana cilaaqaadkoodii halkaas ka unkama dal walba si uu cilaaqaadka markaa ku bilaabaa qaarkood jabhaday taageeri jireen dalka Mareykanku Vietnam dalka leeyahay jabhad kamid ah jabhadihii ka dagaalamayay ayuu taageerayay fiiri ساسو علاقاتكooda ku soo askumay marka sidan way sida loo soo dhisaa marka cilaaqaadka dalku haduu dhaqaale haysto waa arintaas inuu dhaqaalihiisaas u horo dadkiisa inay maalin kala maalaan waa laga laakiin dadka qaar kood baa si xun u mislead u mismaartay mismanagement ku sameeya kara
ama si xun u maamuli kara maartay ama si xun maartay uu duwi kara sida aan aaminsanahay in imaaraadka ay ku dhacdo oo kale cadaymadana ay keeni doono marka arrintaas waxay soo ducduucatay hadda maanta halkay maraysaa marka maanta waxay maraysaa in ay Taliban oo urur ah oo argagixis u diiwaan gashan caalamka ay dawladii adduunka ugu weyneed ay dooxa ku kala saxdaan heshiisiyo ay qadar dhex fadhido oo qadarna tir dhaxaad arrinta ay ahayd xafiiska lacag baa ku baxda waa safaarad oo kale wuxuu leeyahay shaqaale diyaaradaha maalin walba ay soo fuulaan nimankan wadaadada ahi intaas oo dad kala soconaya waxa qadar baa bixinaysa ujeedka ka leedahay waa leverage waa dalyar dhaqaale haystaan dhaqaalahoodii rabaan inay dabaqaan oo ay ku dabaqaan inay saameyn yeeshaan isagoo ka hadlayay xarunta leader security forum wasiirka arrimaha dibadda dalka la yiraahdo Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Thani waxa uu sheegay hadda ka hor in dalalka yaryar aan la quursan karin haddii ay isticmaalaan xigmad ku aadan dhaqaalahooda kulan kale oo anigu aan goobjoog ka ahaa oo ka dhacay magaalada New York oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlayay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Qatar oo waa ay soo qaban qaabiyaan ururkan la yiraahdo Concordia oo bixiya bilado oo la siiyay sanadkii hore waa tii la siiyay madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Ethiopia waa tii la guddoonsiiyay oo ka dhacay magaalada New York kulan markaas ay qabtaan baa jira kulan aad u weyn oo ay ka soo qayb galaan dad aad u badan oo aqoon-yahana ururkan markaas Concordia la yiraahdo oo ka hadlayay wuxuu yiri Qatar waa laga yaabaa dadku inay u arkaan ayuu yiri fiir inay u arkaan dal yar oo caata marka laga eego tir ahaan iyo dad ahaan iyo bid ahaan laakiin wuxuu yiri marka ay timaado siyaasadda iyo weeleynteeda iyo faragelin ayuu yiri wuxuu yiri caafimaad qabta fiir buu ku sifeeyay moogtay faragelin waxa jirta buu cuduraysan iyo mid caafimaad qabta caafimaad qabta waxa weeye in dalalka aanu ka gacan siino arrimaha dhibaatooyinka hoose inay ka yimaadaan oo kasoo mujabaxaan waxaas oo kale markay noqoto ayuu yiri waa dal weyn buu marka saas oo kale noqoto mana aha buu macnaheedu dal yar baan ahay oo kadibna dal walba uu igu joogsanaya oo marka saas u dhigay hadalka marka dalalka ay faragelinta ku sameeyay oo kale waa taas tusaale ahaan arrinta Soomaaliya oo Qatar la yiraahdo faragelin bay ku sameeysaa inkastoo wax cadeynaho rasmi ah oo maartay faragelinta ay sameeysaa aynaan haynin laakiin waxaan haynaa waxa weeye in cilaaqaad leeyihiin dawladda Soomaaliya iyo Qatar saas oo kale inuu dhiga karnaa moogta waxaan ognahay in wax ku bineynana laakiin waxaan ogeynaa wax mala awaala ama wax warsuuqa wax kuma binay karno tusaale ahaan Qatar waxa ay taageerooyinka ay muujiso inagu inuu aragno inta badan waa taageerooyin muuqda oo cadcad oo maaragtay qalab ay geyso ciidamada qalab siiso qalab dhaqaatiir ay geyso dadka markay dhaawacmaan oo dhibaato ku dhacdo ay geyso kulamo ay u qabato maaragtay madaxda Soomaaliya markay yimaadaan Dooxa inay yimaadaan laakiin hal mid baa dhaxtaalino ah waxaas oo dhan maaha free of charge maaha fi sabilillah ma wax fi sabilillah maaha oo maaha wax iska qaado oo waa awooga Ilaahay ka waraabiyo maaha laakiin ujeedada ay Qatar ka leedahay waa sidaas waa inay noqoto dal saameyn leh oo riijka saameyn ku leh hadaba inaga maxaa marka xageenu ka fiirinaynaa inaga marka waxa weeye arinta inta dawladnimo Soomaaliyeed dalku haduu dawlad yahay dawladdu inta doonto hal ekaatay haday dawlad ka jirto ama meel maamul ka jiro hadii dawladu taageerto oo dawladnimadaas inay adkaato iyo maamulkaas inuu adkaado haduu taageero waa falay xamd waa loo mahad celinaya laakiin hadii jabhado ururo kooxo wax noocaas oo kala hadii ay taageeraan ama siyaasiyiin gaar ay taageeraan ama dad gaar ah dhaqaale ay ku siiyaan ama gobol kamid ay dhaqaale siiyaan waxay noqonaysaa in ay taasi tahay qayb oo xukun oo kale waayo dal kasta wuxuu leeyahay meel ugu sareysa dal adduunka iska jiro iska nool ma jirin Soomaaliya 30 sano oo dawlad la'aan ahayd ayadan inta marba ninba madaxweyne u ahaa intuu doonaba ha sheegto say doonto awoodii doonto hala haato sidoo ka sanado marba marxalad ha maraso marka inta dalka wanaaga jecel ama wanaaga waxa lagu yaqaanaa in uu mar walba dawladnimada dhinaceeda taageero marka Qatar lagu daro dalalka Carabeed oo dhan Soomaaliya ma u yihiin xabiib ma u yihiin Carabtu Soomaaliya inay dawladnimo hesho Carabtu ma ka tiba keeneen ma isku dayeen Qatar ku dar ila maaha umana dhawa wuxuu yiri tooridu galka mana leeka umana dhawa ayuu yiri umana leeka wari umana leeka marka macnaha fiiri waxaana taa ku cadeynaysa
carabtu inta ay Soomaaliya waa laga yaabaa inay sadaqooyin iyo timir iyo wadaado iyo usoo direen maartay ururo wata oo taageerooyin yaryar iyo sadaqaad iyo kasoo fuliyeen oo inta badan taas kasoo miixanaysa inta badan dad maartay muxsiniina ayadana sida loo maareynayay ilaahay Allah yaclamay tahay dadka ka faa'iideystay ay aad iyo aad u yar yihiin ama dadka looga faa'iideeyay aad iyo aad u yar yihiin haddana marka la eego ama Qatar dheh ama Imaaraad dheh ama Sacuudiya dheh ama cid doonta ugu yeer dalka Soomaaliya looma xagar bixin carabna uma xagar bixin hadeerta lafteedana in la isku haleeyo ama Qatar ha noqoto ama tukal ha noqoto oo dawladna ay u dhiibato raqabadeeda koox siyaasiyiinahana ay isku xidhaan waa arrin wadaniyadeena ka fog mustaqbalkana ka fog dalka wixii aad isla wada qabsan kartaan ee wanaaga waa la wada qabsadaa dalka waa isku baahan tihiin dal kasta saaxiib baynu uga baahannahay saaxiibtinimada in la dhiso inagay dan inoo tahay laakiin sida loo dhisaya waa inay noqotaa si markaasi muhiim imaaraadka carabtu markaa dalalka uu farageliyey beneegana marka Liibiya Suuriya oo shalay warbixintii ugu dambeysay ku jirtay dalka la yiraahdo Soomaaliya iyo waliba tusaale ahaan dalal kale oo faragel inta laakiin kooban inoo soo qabo okay Liibiya dalka Imaaraadka Carabtu wuxuu taageeray Haftar waa General Khalifa Haftar waa janan uu buriyay jaranka baxsadka ah marka loo bixiyay waxa uu ka baxsaday Muammar Gaddafi xilligiisa uu joogi lahaa mar hore maartay ilaahay baad ka badbaadiyay laakiin dadkii uu socodsiiyay uu ka mid noqon lahaa markii uu Muammar Gaddafi la dilay buu ka soo noqday dalka Mareykanka ayuu baxsaday haatan ilaa iyo intaasna waxa uu doonayay talada dalkaas inuu xoog ku qabsado qaab jabhadnimo ah ayuuna doonayay inuu ku qabsado qaab siyaasadeed iyo qaab tartan iyo qaab xataa wanaaga marna ma soo marin inaga Liibiyaanka inagu ma kala jecelin haday yihiin kan aan haysta ninkalaado Saraj ninkan Saraj Jene waa kan Haftar Jene waa inagu ma kala jecelin dadku waxaad moodaa marka qaar kood inay u maleeyo karaan in wararka iyo falanqayntu ay uga dhex muuqato waxyaalo kale oo Soomaalida ku dhaqanka iska leh Soomaalida iyagu waxay yaqaanaan taageero indha la'aan iyo mucaarad indha la'aan laakiin saas maaha waxaan waa odor sax oo dhaba oo dad baari kartid هذا قلب كاغا باري كرا marka Khalifa Haftar ayay taageereen waxayna ku taageerayaan inuu dalkaasi afgambi ka sameeyo waa nin markaasi jabhad noqday oo military ah dhul badan uu qabsaday kaligoodna kuma aha ee dalal kale oo Carbeed oo Sacuudiga ka mid yahay Suudaan ka mid tahay ba taageerayay Masar ka mid tahay ba taageeray laakiin inagu halkan u socnaa waa maxay dhinaca dawladnimada dalkaasi inay dawladnimo helo ma taageerano dhinaca ma soo mareeno ileen dadku waxay ku heshiyaan ba marka dawlad u ah إلا عالم كبدن كسميش وبدن يها مركا وحاسة دولة واه ما تاجرن وما سوريا صاحدي سوريا مركي أوريسي دلالك عربية ضرن وي علاقات كيو تشرين جامعة عربت ولا قصاري وحنا لوجا صاري مركي هوري ومركي ونولا مبدأ سنيين ها سني سكوتي سن وسكو مبدأ كاري ما هالشيء وحيالهاس وحنا لو سمي مدام ضلك كعدون كسمي سوريان كهاي سنيين هاين دلالك عربية ضرن دلالك سنيين تهو ضن واتي علاقات كيو جوين مركا تاسي كلام ده مركي دم challenge يمت inta badan waxa la ogaadaa saaxiibka rasmiga ah waxa la ogaadaa ama qofka taageerada rasmiga ah marka loolan yimaado ee arintii aad ka shaqeynaysa ee loolanka kusoo food saaro in aad adkaysato iyo inaad cararto marka dalalka Carbeed markii arrimihii kale isku dhubuqeen ee arintii Yaman la isku diiday ee dilkii Jamal Khashoggi yimid ee arrimihii adkaadeen ee la kala baxbaxsaday ee MBS soo baxay wiilkaas dalalkii uu kala furfurmeen ayaa dalba si uga siibtay waxa marka ninkii ay la dirirayeen bay u galeen hadana oo maartay dadka saleynayay ayaa u galeen bal fiiri mar walba dhinac istaagayaan marka حتى ayagu ma aysan sameeynin dadkii jabhadaha ay walba taageerayeen qayb la taageerayeen qaybtoodii ma adkaynin kamay dhabaynin suniintoodii kumay adkaysan hadana waxay u carareen safaaraddu bay ka furteen halkaas ay u carareen oo maartay imaaraadka halkaas ay u carareen bal yaabkiisa fiiri adiga waxaan oo dhan wada baad waa warbixino caadi oo jira halkaas hadana ka fadkudiyeen hadda maxaa ugu dambeeyay waxa ugu dambeeyay kala siisido xabad joojintii ay Ruushka iyo Turkiga wada gaareen bay lacag ku bixinayeen oo ileeyay xabad joojinta hal burburiyo maxaa kaliya ka dhalan kara dil burbur ba ka dhalan kara cidii doonta isku disho meesha fiiri marka mar walba maxay taagan yihiin dhinaca negative-ka ay taagan yihiin iyo dhinaca maartay wax loo yaqaano the negative impacts waxyaalo kasta xumaan oo dhalan kara Yaman ayay qayb ka noqdeen faragelintii oo dalalka ku duulay wali ciidanka lixaad kale hiil iyo hooga Sacuudiga siiyay ka mid noqday fiiri Sacuudiga ayaa ka shar badan marka Sacuudigu dantu doono waxa la ahaado ciidanka iska jiheeyo arimo kale hala ahaadeen laakiin at least Sacuudigu ma faragelinin unification-ka dalka unity-ka dalkaas ma faragelinin ilaa hadda Sacuudiga looma hayo cadayna ay ku farageliyeen ayagu dalkii
dadkii iyagu ay taageerayeen reer cadmeedkii iyo dowladdii ay taageerayeen bay kala jabiyeen oo laba u kala qaadeen markaas iyaga waxay ka kala dhigeen qolana waxay ka dhigeen maaragtay qolyo maaragtay goonigoosada bay ka dhigeen kuwii goonigoosada taageersan maxay ka wadaan waayo dana khaasa oo aan ahayn dhinaca wanaagga ka dhex muuqda oo shaydaaniyay wata baa la odhan karaa because fiiri suqatar ay yidhahdeen waan qaadana ayagu waxay rabaan dalku markuu burburay awood beele wiiqmo inay markaas xadxadaan oo gogostaan dekadii dalka Djibouti waxay ku sameeyeen banu aragna oo ay maartay dabcan inay sheegtaan okay dalka hadda Soomaaliya markaynu ka hadlano waa dalka Soomaaliya waxaan ka hadlanaa fiiri Somaliland waa ayaga waa 1991 ayay tiri Soomaaliya waa ka go'nay dal gaar ay sheegteen laakiin cid aqoonsatay ma jirto fiiri waa arintan ma aha arin يعني ما هارين مارتي أما مارتي مر أوله أما هارين إسكت هما وحنو كارلنا حوي سير رسمية أولا بينا هارين توفيرنا مركا قاضي سوماليلاند إلى 1991 سوماليلاند ويقصنت إلى 1991 عربت واجرتي مرات كانوا واجري هل ضل أو أقنصدي أو عربيد أو كسر دوادي مجر markii dambe arrimihii intaana dawladnimo Soomaaliyeed baan doonayna bay sheegay jireen markii dambe arrimihii Soomaalida wax ka soo dhawaadeen ayaa Imaaraadku wuxuu yiri waxaan heshiis la galay Soomaaliland ma xuma haba la galeen waayo Soomaaliland waa deegaan nabada waxa ka jirta maamul baa ka jira kala damayn baa ka jirta runtiina inay ka faa'iideystaan hadii ay helayaan maalgashi waa wax Soomaali ay tahay inay ku faanto maalgashi dhaba oo cadaalad oo fiican oo u qalma oo inoo qalma wadeegaankeeni oo dhulkeeni inaynu inagaba Soomaaliba uu noqon lahayd il dhaqaale oo skobacday waayo il kasto dhaqaale oo Soomaalidu waa isku nool way wada kasb way wada gaaraysaa maxay dekada berbera 5 dawladood baa dhisay ma fahmaysaa waa marka laga reebo istaraatiiji ay ku taalo Ilaahay bagcada uu dhigay berbera oo ah bagcad kamid ah dekadaha caalamka ugu wanaagsan berbera kamid ah dekadaha caalamka ugu wanaagsan ugu qadiimisan ugu baaxadda weyn ugu maartay dhulka wanaagsan xitaa iyo dhulka Ilaahay siiyay intuu leeyahay dhulka ku fadhido iyo baaxadda ku fadhido iyo istaraatiijiyada bagcada meesha ku taalo baabul mandab intay u jirto Indian Ocean intay u jirto maartay baddi cadmeed intay u jirto yani bal fiiri maartay istaraatiijiyada iyo bagcada ku taalo iyo airportka ugu weyn Afrika oo dhan buu noqon karayay airportka berber kulli geeska Afrika ugu weyn hadii aad loo horumari lahaa ayaa waxay tiri 400 milyan baan ku bixinaa fiiri 400 milyan baan ku bixinaa bay yiraahdeen qadar dekad la yiraahdo Swakin oo dekad ay ugu dambeysay in la isticmaalo xilliga Uthmaniyada ay ugu dambeysay Suudaan ku taal oo dib loo dhisayo 5 bilyan bay ku bixiyeen 5 bilyan halkii bilyan waa 1 milyan ayaguna 1 bilyan oo marka laba loo qaybiyo qayb ka sii dhiman tahay 400 milyan bilyan waa ku bixinaa bay yiraahdeen haba yiraahdeen ka soo qaad haba yiraahdeen arintii waxay kala yiraahdeen airport-kan dhisana kama dhisan inkastoo markii dambe la sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu arrimo badan oo guracan oo ay wateen uu ka diiday sawir media ogaatay oo ka mid tahay xataa inay doonayeen inay ka faa'iideystaan ciidanka iyo dhalinyarada Soomaaliland ee la tababaray geed deeble lagu tababaray barnaamijka markaasi gurmadka ah oo kala ah ciidanka dadka dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay in wax la baro oo la siiyo xirfado military oo kale la siiyo inay uu diiday waayo Muuse Biixi dooni military oo ninka military-ga ah ee academic-ga ah wax ku soo bartay iyadoo Soomaali qableedahay ogaa caalamka wax ku soo bartay mar walba uu inaga duwan yahay dadkeena qabiilka ku indhafuray iyagoo maartay qaylinayo qabiil xabad dhacaso yimid min walba hadii kelmad loo sheego uu moodayo in qabiilkooda la maagayo marka arintaas runtii dhinacaas marka laga eego waxa la sheegay in arrimo badan la xakameeyay la joojiyay dhawaana waa tii ay sidoo kale samaysay Boosaaso iyo Puntland asaas kale ku samaysay oo runtii ay Boosaaso Puntland arintii ayagana ay dekada Boosaaso ayada heshiiskeediiba ma bacdaba berberaab la qaatay wax loo yahay ma bacdaba wax la wax cadiya ma jiro marka Soomaaliya faragelinta ay ku samaysay saasay oo ay ku samaysay dhinaca xamar markii fiirino ciidan bay abuuratay ciidan gaar ay meel ku ururisay ciidankaas waxay tiri halka ay joogeen aniga hayga amar qaateen siyaasiyiin gaar ay dhaqaale siisay waa faragelinta ay samaysay wanaga ogeyn dagaal baa ka dhacay ciidankoodii iyo dhibaato ka dhacday Boosaaso dagaal baa ka dhacay dhibaato ka dhacday bal marka aynu aqligeena saliimka markaan isticmaalo Imaaraadku madal caalam islaam lamida oo ka shar badan oo siday u shaqeynayaan miyaysan inoo caday miyayna inagu aqli lahayn miyaysan arrintaas inoo caday maxay iyagu mar walba u yihiin dad dan gaar ah wata maleeshiyaad baan dal baan ciidan ku dhex abuuranaya
هذا سوماليلاند هدان dowladdaas iska hortaagin oo dowladda Soomaaliland aysan sida la sheegay oo horfar media loo xaqiijiyay waysan iska hortaagin saas oo kale doonaysa in ciidan ku dhax samaysato laakiin waa laga diiday Noobaaleed laakiin inaga dowladaheennii hore baa ka diidi waayay kadibna xamar bay ciidan dhoobtay iyaga ka amar qaata seebaa dal caalamka ka tirsan oo ciidan meel u dhiga kara oo oran kara ana dal madax banaan oo meel yaalla oo dad haystaan oo deegaan oo dhul ana yeelanaya seebaa oran kara waa maxay danta uu leeyahay haddii uu dalkan iyo dowladnimadan taageerayo hadda tusaale ahaan Somaliland hadday taageeraan oo boqolkiiba taageeraan oo aqoonsi siiyaan oo dhaqaale siiyaan oo maalgashi maartay cadliya siiyaan ma dhacaso ma rabaan waxay doonayaan wax iska gaagaabeeya waxay doonayaan wax maartay wada guracan danta ay leeyihiin hadda ka berbera iyaga maamula oo runtii gacanta ku haya oo waxaan aaminsanahay dhaqaalaha ay lahayn waan ku bixinana boqolaal jeer ka badan baa dekada berberaha suuqgeyn fiican iyo arrimo fiican loo soo saari lahaa Ethiopia yiraahdeen boqolkiiba in baan siinana boqolkiiba 19 ma yahay baan siinana Ethiopia halkee ka soo gashay dekada berbera meel ka soo gashay ma jirto meel inkastoo arrintaas kulli la sixi doono oo aan ku kalsoonahay in dadka reer Soomaaliland aysan ogolaa doonin oo arrintaas ay la sixi doono ayna shaqeyn doonin oo wayde xaq inaguma yeelan wadada la dhisayo ilaa iyo wajaale la dhisayana dadka anaga dhisa karnaba ma fahmaysa marka ugu dambeyntii caalam islaam markaan soo koobo marxaladiisa dhibaatooyin badan baa laga yaabaa inay ku soo socdaan iska horimaada laga yaabaa inay ka dhacaan Liibiya kuwa laga yaabaa inay Suuriya dib uga soo cusboonaadaan taasina lug weyn bay inagu yeelanaysaa hadayna Soomaalida nahay hadayna inagu markaa inaan arrimahan ina faragelin oo aynaan ka hadlin oo aynaan isbaraarujin inagu iska tagtaagan baa qam waagu inagu dumaya dunida wakaasoo maxay sheegay iyagu tagtaagan baa faafe dusha lagaga keenay lagu habsaday laakiin tan kor waa dabiici wixii dabiici dadku ilaahay wax ka qaban kara waxaad ka qaban karto waad ka qabanaysaa laakiin waxa aadanahu sameeynaya dadka kugu dhex jira ay sameynayaan inaad ka digtoonaato oo aan lagugu soo dhaxgelin oo aan lagugu sanduleyn oo aan lagugu dhibaateyn oo aan la isla ka jeerin oo aad baqcadan aad joogtana istiraatiijiyadeeda iyo meeshaad ku taalo aad maaragtay aad ogaato baa loo baahan yahay Soomaalidu waligoodba way nooleed ayadoo oo shuban biyood ka dhacay ayadoo cagabarar ka dhacay ayagoo oo waligood la hodaan dawlad haysan ayay noolaayeen oo xoolahoodaas ay ku nool inta xoolaheenaas inoo nool yihiin waan iska noolaa doonaa badeenaasna inaga garan weynay inaynu ka shaqeysano ka shaqeysan karna ama Somaliland joog ama Soomaaliya joog ama kelinka shanaad joog Soomaalidu hadday ayagu bal ugu yaraan hadday siyaasadda isla fahmi diideen hadday sida kale isugu xidhmaan oo yiraahdaan war cid walba inoo cad anigu ma aaminsani dal xabiib inuu maanta jiro Turkiga xitaa danuu leeyahay waayo taasu wax adigu subaxii markaad baxdo ee aad aado masaajidka salaada subaxda aado dan la'aan ilaahay dantiisa u baxdo maya ilaahay salaadaada uma baahna laakiin adaad dantaada u baxay waxa ugu fiican loo baxaana waa inaad salaada masaajid u kala hado fiiri marka ka waran nin kale oo wax wadaagin oo muslimada guud ee laakiin dantiba waxay noqon kartaa mid markaas ay ka dhalato dantaadi iyo mid aysan ka dhalan karin dantaadi taan baa lagu kala fasiraya moogti meesha lagu kala tagayo halka marka Turkiga iyo dalalka kale iyo dal hebel ma la shaqaysan karnaa oo waxna ma inoo ogol yihiin wax ma ka tagayaan inagiina wax ma inoo ogol yihiin saas oo kale day noqoto waa arrin la fahmi karo laakiin bal Imaaraadka arrintiisa sidee loo fahmi karaa bal dal kaliya oo ku tanaaday oo Imaaraadku taageero intuu siiyay caalamka islaamka oo ka soo dhalaalay oo si weyn u taageeray hadii la soo helo maxay tahay sheegan horfadhi media waxay bixinaysaa xal ma jiro dal kaliya caalamka islaamka ka tirsan oo dalkaas intuu iska rab taagay ruuqa qaadmay oo dhismay ma jiro marka waa maxay marka Imaaraadka waa dal muslima waa dal inuu daris xagga badda ka nahay cilaaqaad badan bay leenahay cadow kuma nihin waa walaaladeen laakiin waxaan doonaynaa inaynu ogeysino inaynu ognahay Soomaalidu waynu istareensinaa inaynu wax ognahay sidee baynu marka wax ku gaari karnaa sidee baynu wax ku noqon karnaa waxaan wax ku noqon karnaa inagu isku tashana inagu iscafina inagu waxaynu wada qabsan karnaa wada qabsanna waxaynu wada qabsan karina aynu nahano bal dib u dhigano tan aynu wada qabsan karnaa horta ka shaqeeyna dalkeena u jeesana wax soo saarkiisa beerihiisa cunto u raadintiisa yaani qof walba xitaa siyaasadda aadan la fahmaynin magaalada kugu dhigan ama aad u aragto siyaasadda tusaalahan Somaliland iyo Soomaaliya oo kale tiradan siyaasad kuma fahmi karno wax badan oo kale oo la isla fahmi karo laga wada tashakaro
oo la wasixi karo ayaa la wasixi karaa oo kamid tahay arinta hadeerto hawada oo kale marka go'aan laga gaarayo arinta meel karatiin dad la xayiray waxaas wax laga wada tashan karo waa collective responsibility baa la yiraahdaa waa mas'uuliyad wadareed oo dadka dhan wada leeyihiin oo aan cid gaar aan gaar u ahayn hal mid oo kale dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan way sheegaya siyaasiyiintu way heshiis doonaan وانا هشي دونان adigu ha noqonin ul la iska isticmaalo adigu noqo qof u nool horumarkiisa iyo horumarka deegaankiisa iyo wanaaga guud u nool oo ku nool common sense ku nool oo aqriyada guud isticmaal ha noqonin qof ku xira oo ra'yigiisa iyo ku bineeya qof rabitaan siyaasi oo bari meesha ku dameeyo doono aadan ogey bari inuu wasiir xamar ka noqon doono inuu madaxweyne ka noqon doono inuu prime minister ka noqdo adigu aadan ogeyn ha ku bineenin hana ku jeen goyn mustaqbalkaaga hana ku xidhin mustaqbalkaaga waxaad ku xidhaa in aad waaqici noqoto inta aad ku joojiyo amaana